السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا خيارتا تاني انتو سو جري آذانها وحا جري دبيعادا وقارها آذانها waxaana ka xusi doonaa mid ka mid ah taasi oo maanta mowduuceen uu ku saabsan yahay waana dabeecadda xaqtiga ama xaasidka balse inta aanan mowduuceen u gudban haddii aad ku cusubtahay halkan fadlan ha iloobin inaad subscribe siyaati janaalka fiidiyowgana like noo saartid mahadsanidin. aadanuhu wuxuu dabeecad u leeyahay xaasidnimada ama xiqdiga marka laga reebo qaar Allah subxaanahu wa ta'aala uu ka badbaadiyay in qof wax ku quuri waayo horumar farxad iyo nololba waa astaamaha soo jireenka ay aadanahu uu leeyahay waana xaasidnimada. ereygan xaasid ama xaasidnimo marka aad maqashid in qof bini aadam ah uu si u xaasidnimeeyo. xaasidnimadu waa laba qaybood, mid waxaa fahmi karaa qof kasta waana in qofka uu si toos ah kugu muujiyo taasi oo ah mid aad u sahlan inaad ka foojignaan karto, halka midda kalena ay tahay mid ku laban jirkaaga. oo maxaan ula jeedaa? saaxiibkaaga daacadda aad u malaynaysid, walaalka ama qof ehel iyo qaraabo ku ah taasi oo aadan ka filanaynin xaasidnimada balse taasi beddelkeeda ku muujinayo in uu ku siinayo talo wanaagsan, inuu daacad ku yahay, inuu adag tahay in aad iska ilaalisid ama aad aamintid inuu qofku xaasidnimeynay u yahay isagoo adeegsanayo bixinta talooyin aad wanaag u arkaysid. si aan u xoojinno qormadeena maanta waxaan soo qaadan doonaa laba qiso oo aan hubo in qof kasta oo muslima uu og yahay runaanshaheeda. qisada koowaad, qisadii qaabiil iyo haabiil. kadib markii Allah subxaanahu uu waxyooday nabi aadan calayhi salaam in labadiisa wiil uu u guuriyo midba midka kale gabarta lamataanta ah ayuu qaabiil ka soo horjeestay kuna caasiyay hadalkii aabihii. nabi aadan waxaa ku cadaatay talo waxaana ku fikiray siduu iskugu heli lahaa farxad iyo labadiisa wiil oo wada nool. Allah ayaana ku hanuuniyay talada xasilinta qoyskiisa wuxuuna u soo jeediyay in labadooduba ay badartii sadaqa u baxsadaan kolba koodii laga aqbalane uu garta u yeelan doono waxa uu jecel yahay inuu helo. awrgeeliisa ku jiray ayuu haabiil ku allabariyay halka qaabiilna sarreen beertiisa ka soo gooday. maalintaa waxaa nasiibsaday halkaasna guusha ay ku raacday haabiil oo laga aqbalay walaalkiisna waa lagu diiday. qaabiil waxaa galay xiqdi iyo xaasidnimo taasi oo sabab u noqotay in haabiil adduunka uu macsalaameeyo. qisada labaad daawade aan ku soo gudbin doono waa qisadii nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam. waxa uu ku riyooday 11 xidig qorraxda iyo dayaxa oo u sujuudsan, wuxuuna riyadaasi la wadaagay aabihii yacquub calayhi salaam. wuxuuna u sheegay inay tahay arrin aad u fiican isla markaana uusan isaga sheegin walaalihiis haddii kale ay xaasidnimeyn doonaan, balse iyagu awal buu hayay cuqdad ah inuu aabbahood ka jecel yahay labadan wiil waa yuusuf iyo walaalkiisa ayuu sababsaday dil ay ugu talagaleen balse Allah ayaa ka badbaadiyay. ugu dambaynna ay mutaysteen isagoo boqor ah. haddaba sidee uga gudbi kartaa qofka noocaas ah ama xaasidka ah? kow, noqo qofka la xaasidnimeeyo ee adiga ha noqonin qofka u xaasidnimeeyo. labo, aamin naftaada go'aanka qofka kalena yuusan ku siinin. saddex, adeeg muuji hana ka niya jabin waxa aad rabtid inaad samaysid. afar, naftaada ku kalsoonow. haddii inta aad samaysid waan filayaa inaad ka gudbi kartid caqabad kasta oo ka fasaarto qof aanan doonaynin farxadaada, noloshaada iyo mustaqbalkaada. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawade qormadeennii ama muuqaalkeennii aan uga hadlaynay xaasidnimada bini aadamka. tan iyo intaan ku kulmi doono tan xigto, nabadgelyo.